wasiirada wasaaradaha horumarinta maalgashiga Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa xariga ka jaray xarunta jumlada dahabka ee Al-Saadaad oo laga hirgeliyay bartamaha magaalada Hargeysa taas oo lagu soo bandhigay dahabka noocyadiisa kala duwan isla markaasina lagu nashqadiyay farsamo casri ah waxaana ka warbixisay milkiilaha meheradaasi Al-Saadaad Fatxiya Axmed Cabdullaahi qaybaha kala duwan oo dahabku ka kooban yahay ee meheradani hayso kambanigan wuxuu kambaniyada kala duwan yahay kambanigu horeeyay markii dalka aynu soo galay dahabka keenay kambanigu horeeyay dumarkeedna xaragadiisa ka qayb qaatay waxa kale uu kaga duwan yahay waa kambaniga supply gareeya kaamadeenna sida u dhayihiin iyaguna aad u dadaalaya marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa in imika waxa yaala Baxreynkii, Singabuurkii, Kuwaitigii, Dubaydii nooc walba waa yaala oo jumlad ah waxaan maaragtay ilaahay ka rajaynayaa in kii dalkeena ku soo biiro mid kamid ah macaamiisha meheradaasi ayaa soo dhaweysay nashqadeynta dahabka ay sameeyso Al-Saadaad taasoo runtii hortii aanu baan macmiil aanu ahay muddo badan macmiil aanu ahaa inta kale waxaan kaga sii helaa in dahabka Fatxiya keento ama Al-Saadaad jewelry waxa weeyaan disayno ayaguna ka hadlay halkaasi isla markaasina soo dhaweeyay qaar kamid ah ka qaybgalayaashii munaasabadii lagu fureeyay xarunta dahabka ee Al-Saadaad wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Boos Mire Maxamed ayaa isaguna halkaasi ka hadlay aad ugu mahadnaqaynaa alla intii galata maalgashiga dowladda keena qoran oo badhiiso ugu dambeyntiina waxaa halkaasi xariga kaga jiray wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Soomaaliland mudane Cawad isla markaasina sheegay in meheradani ay tahay meheradii ugu horeysay oo jumlada ah oo lagu iibinayo dahabka ganacsatada reer Soomaaliland ee ugu horeeyay Al-Saadaad inay maalgashadaan maalgashiga gaabo ilaa loo yaacdo ku wada jira dowladdu imka waxay wadaa baaristeedii iyo baaristeedii bay wadaa insha Allah dhawaan waxaan rajayn doonaa inay noqon doono wadamada dahabka dalka dibadda soo dhoofiyo dahabka ugu fiican noqon doona qabla reer Soomaaliland dahabka jecel iyo ragade wanaagsan dalkooda waxa la yahay hawday ma la'aanina Al-Saadaad baa la yoon kala inuu keenay wardina qoleeyna